asxaabta ku xidhan channelka waxaan idin sheegayaa arrin yar oo sira biirkii markii uu Kenya tagay hadday Iliyari iyo England show ay soo dhaweyn lahaayeen ama ay ogaan lahaayeen showgaasi kama uusan baahnay sidoo kale Cawaale Aadan markuu Hargeysa imanaya hadduu la soo xidhiidhay xidigaha geedka iyo Maxamed Saciid Biike isagana show qurux badan baa loo dhigayaa midhayga qor waxba ka jiraan walkaan taabto waxba ka jiraan fadlan saaxiibkana daawanay oo haylaawin channelka T5S channel inaad subscribe like share iyo comment intaba isku raacayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وعنا ونكسن دعوضي الملك السودانية دعالة ذا كجوكتان كسو هذا برنامج أنا وقلت لي دعوضي عشان ما دام نمودك كلام مغنين أما إن أركتي إنه أنا إسكوب بدني برنامج كان أنا وقلت لي إن أنا لو ذا الناس حابة وحنا قصة قاعدين ضنا تربا لابا فنان كوبدو محمد سعيد بيكي إن بدنا لقاه الله أنا يوم كسي ديرانا إن هذا الكا محمد سعيد بيكي مادامو وربحنتي سودان بعض هايسان أنا صاير كوبنو مدوي هو دم محمد سعيد بيكي وحكوس سوقنا ضلك كينيا ترى لما شوبا وقبسومي واي سبب ترى أوجد السوق قتل مامي الرمى السياسة محل دعي كدي وكسر دولي مجال نيروبي وحانو يمدي مجال هرقيسة جماهير الصومالي لنا أو كسوق سبرتاس باس سحر سراء حاول الماما ها سيدي مصبي حلو كسر دوي دالك جني أو كلا لو كسر دوي مي جني تطبع نسمونه صباحين واحد سكوا صباحي أدو سحر سراء بالو كسر دوي محمد سعيد بيك مجال ده هرقيسة هذا بوح إنه كهلنا وحي هرا لوجا صحالي نير وحكي دوان محمد سعيد بيك واحد إنه إيجينا وحي وقلد ليه وحي قلد لك قلي كدب waxaynu falanqeynaynaa mustaqbalka fankiisa maxaa ku soo kordhi kara maxaa sababayaan qaladaadka uu galay iyo kuwa laga galay Maxamed Saciid Biike run ahaantii waa xanaaqsanaa haddaba maxaa sababay inuu xanaaqa Maxamed Saciid Biike taasaan ku horeynaa waa sababta keentay xanaaqa uu xanaaqay waxa inoogu xigaysa maxaa iyaguna ka xanaaqeen dadka ka soo horjeeda Maxamed Saciid Biike waa laba qodob hadaba ila socota mar saddexaadku waxaynu eegi doonaa Maxamed Saciid Biike mustaqbalkiisa dambe laakiin waxba yaanaan idin kala saarin si guud ahaan idin ku dulmaraya waxaan u socdaa ninka loo Cawaale Aadan la yiraahdo isagana barnaamijkiisa la soo saaray miiska dhawaan oo isagana dhowr qodob ka yar oran doono haddaba Maxamed Saciid Biike waxa uu ka xanaaqay markii uu magaalada Nairobi tagay ee uu qorshaystay inuu show dhigto in showgiisii qaab adoo xigmadaysan looga hor istaagay halooga hor istaago waa ka xanaaqay wuxuu dareemay in lagu yasayo calankiisa iyo dalka uu aaminsan yahay ee qadiyadiisa uu madaxa saartay Somaliland kadib isagoo xanaaq afka buuray soo noqday magaalada Hargeysa markuu yimid waa la soo dhaweeyay si heer sare ama qaam sare iyadoo halkaas ay ka muuqatay shacabka reer Somaliland in ay u jawaabayaan dadkii showga ka soo kala kiciyay sabab hadaba Maxamed Saciid Biike xamaasad jirta waqtigan magaalada Hargeysa Muuse Bixisaa ka taageerab hadduu maanta Maxamed Saciid Biike yiraahdo waxaan isku sharaxayaa madaxweyne isla waqtiga Muuse Bixilka laga qaado shacabku diyaar buu yahay xamaasad jirta awgeed okay taamirka laga yimaado Maxamed Saciid Biike wuxuu ka soo xanaaqay showga laga kansalay isagoo dareemay in calankiisa lagu culaadiyay iyo qadiyadiisa حق بقولي إنه مركا كحناقو ما دام قفكو آمن سنان وحو آمن سنين هاللقون نعي أو أركتيز إساقا قاروتها إساقا آمن سن أدو قداه هذا هكود لبن إيه هذا وريان هكود لبن قفكو سوحو آمن سنين كليا وحا إذا كان نحيا قوة الشوغة محمد سعيد Biike الصومالي با إذا كان نحيا إيا الصومالي نمو ويدين هيسيا إذن كنا دقيستو كو عيارة دي haddaba marka ay sidaa tahay xaq buu u leeyahay xanaaqo
maadaama qadiyadiisii lagu colaadiyey. Okay, ha xanaaqa laakiin xanaaqu xad buu leeyahay, isagana wax yeeli kara haddii uu dhaafo cid kalena uu wax ku yeeli karo. xadkaasoo ah mustaqbalka fankiisa inuu ka fikiro hore, maadaamuuna wax u gashanin fanka oona cid kale u haysin, uu reer Somaliland kaliya u heesay, waxa fiicneed haddana inuu sidaa ku ilaashado. waayo saas lagu dhageysanayay in saa uu ku ilaashado oo uuna ka gudbin. eeg hadda iyadna waa qodob. Maxamed Siciid Biike waqtiga uu xanaaqay kadib baan anigu intaan warbixinayo uu gudbay oo uu xuduudda ka tallaabay, qaanuunkii loogu talagalay fanaan lahaan uu ka gudbay. horta midaan ku daray Maxamed Siciid Biike waa nin dowladda Somaliland wax ka ah, waa askari, waa booliska asluubta Somaliland, ciidamada asluubta Somaliland. sidaas ay tahay qodobka isagoo ilaashanaya buu awal heesa awna ugu qaadi jirin gobolada kale Soomaalida, ha ahaato Kenya, Djibouti, Somaliland wuba u heesaayo iyadu heesaygu ku maydhaaba subaxdii mid buu ku quraacda. wanaga waan yaabaniyo heesaha qaabku hadda ma garanaysa. sidaa markay tahay Maxamed Siciid Biike wuxuu intiisa hore qalad anigu kuma hayo. dadka reer Soomaalida kale waxay ka xanaaqeen iyaguna xidigaa gees waqti sii horeysay mar ay tageen magaalada Muqdisho si fiican loogu soo dhaweeyay, heesa show wax walba ku qabsadeen. baa Facebook waxa lagu arkay Facebook ku qoran yahay Maxamed Siciid Biike, Maxamed Biike oo wuxuu soo qoray xamaroon taga xabad baan ka xiga, isaga afkiisa ka raali geliyay yiri anigu ma samayn, haddii aniga la igu tumin waan ka raali geliyay umada Soomaaliyeed waa imid. okay, waa mid raganimo, laakiin dad baan dhageysanin ama aan ma inaanay warbixinta helin in isaga aanu ahayn, aan ogeyn baan u malaynaya baa ku colaadiyay. colaadintii markay cadaadisku duuba taqrax bay yimaado moogti, hadda isna dee waa qarxay saaxib. Maxamed Siciid Biike markii Hargeysa lagu soo dhaweeyay wuxuu arkay qaabka loo jecel yahay Hargeysa, kumanaan dad ma garanaysaay buux dhaafiyay intii uu joogay. hadda Switzerland aba ka badan maxaa Kenya ku geeyay, tigidii hore uba qoomamay, laakiin kan uu fikirin maxaa ka dambeeya. waayo waxa loo soo dhaweeyay meeqaam sareeya, ha loo soo dhaweeyay sabab baa keentay soo dhaweynta, waxa keenay carqalado iyo xamaasad jirtay awgeed baa u soo dhaweeyeen dadkay qadiyad ay wada aaminsanayeen ma xuma. laakiin markuu taa arkay buu taraaraxay, odaygu waa sii daayay. eegada waxa la weydiiyay su'aalo ku saabsan su'aalaan hadda ka hadlayno, wuxuu ku jawaabay Soomaali inta Soomaaliya ku hadasha waan jeclahay, waan tagay, waan u heesaya marka laga reebo Muqdisho. waay maxaa u tiri Maxamed Biike سامحوا الفنان بعد فنانين لو قلت عليه ترون عندي فنانين توجه رياض لكن إن أعطت كلا صارته أذكى نسخان قوت رجعني ما هذا العواز ما أنت واحد جوجها أركنا كفكر المستقبل غير الزملاء ما ده حماسي وسولويين قرب وقاعدين ويكم مع مسان حالة تقول ما تحتوي ذا جوت ساسو تهاي حماسته مركز لما تهل كده قدام بين كفكر وحيابة بدن حتى أصلاً كمستقبل كربته هذا العسكري قاعد يقول يسكت هاني سين ده أنا ماشي لكن هذا أصلاً كمستقبل كربته dadka isku wada dusha ku sido. Maxamed Siciid Biike marka qaabkaas buu xanaaqay, Soomaalina uu kala saaray intaas buu tuuray. mar inta hadii uu tuuray Soomaalida kale maxaa la gudboon, Soomaalida kale dabcan de maanu ku xanaaqo tuuray lana uu dabac xumaaday, hatta reer Soomaaliya lafteedu kala tuuray mar loo soo ninkan waa magaranaysa. marka Maxamed Siciid Biike qodobkaas baan ku haynaa isaga oo qaladkiisa. dadka kale iyagana in yar soo noqdo anigoo intii horena yarta taabtay warqadiyadiisa cidna ha ku nacina cidna ha ku taageerina, laakiin waxa idin ka dhaxeeya ku wada socda. haddii aanad intaa kula wada soconin dee dhibka ka daa ha ka xanaaqsiiniyo Maxamed Siciid Biike niyo wad ka xanaaqsan dad kale badan boo jeclaaba siin nacayb aad nacsiiseen inaad qofka sida hawsi fogeynina haddaad adigu shakhsi ahaan nacdo sida qalad ku sax qaladun weey qaladun hada ma garat intaan kaga imaado iyagana aan u soo koobo waayo ma jecliinaan dad شخصي ولا لا هذا كرايس وايو والشخص وكوسو جوابي كرا وحبو كارون كرا لكن أمد أن كل بسعن أما محو هاي إن تقصي ديرات ما ها ما ضحك الشيء ما نعيب يحماتي ونايب وحكنا أضرت معته. أوكي. إنك كنا نعمل
عوالة آذن إسنا أسبوعي وقد بيه وحيولي وحني ماني مقالة هرقيسة هي ما دو ريس ومالا حناقصانو بيكيكا حناقصانا بايولي ما إيمي كرتي صاحب ألكانا قبتوك هذا ما قرأت هالكان وصل راف بيكول هذا لكن كوح الأولينيس إنه عوالة آذن من ما أوران كرو سومالا بساطري لكن تدخل سومالا باكسو هورتشيس laga yaabaa in dadka lagu jiraan laakiin dadka Soomaaliland oo qaarkood aan garanayo arinka keenay waxay yiraahdeen ninkan Cawaale Aadan maanta ku dhawaaqay wuxuu imanayaa boorama kadibna Hargeysa imanayaa Cawaale Aadan wala wada sheegay qof markuu warbixin soo kordho waa la siiyay falanqeeyo mawt ni Cawaale Aadan waxay ila soo hadleen inay Canada wada joogeen eedin maygu ku yiriniyo kaalay nooga hees eedin maygi wuxuu ku yiriniyo qabiilo ma hees okay haddii aad maxaad BK caddaan ka hadalno niliniyo qofka qadiidiisa yaan lagu culaadin haddii uu Cawaale Aadan uu qabiilka aaminsan yahay ha ku culaadin kasbo wala kasbadaay laana wala kasbada maanta wax rabto waa inaad kasbata dukaan haddii aad furato waa inaad dadka kasbata say kaaga iibsadaan marka ha ku culaadin haddii uu ka aaminsan yahay waayo xor buu u yahay taaka soo ko Cawaale Aadan baa xanaaqay حناق ما في عنا مرة بموت هذا اللوس بس هو يريدي وحيدي محان إنها عوالة إن هذا الذي سواح كم موقضي تبابع وجعل سنين وسمالا يمادو إن عنا فام باكو تري يو هنشبات وصاقب سفنانات الرئيس سمالا أنا تجت شبوت ويقول هنقول نسولو ونام حلوس محا اسكو حركوا تدير باكو صاح الله تدكاسون بجواب تكاملا ما أحدث كلوس ودويو أما محايدات كلينا ذيك هذا الشيء ما في عنا حنا بس كشيطان كسكنا على نيويورك بس شيطان كسكنا يجينا حتى يداومنا صدقني جاي وحنا قلنا ما قررنا صار شيطان كسكنا مركها تاساتي متى وحيدنيو ونسولوينا إما محا كذب وحصور هذه عديمة بدن السوق هو يري هلا يجسوا كربحه مركها هره إن عدين لا يجو كينا خبا هدي لا يجو ينا لا يجسوا كربحه صاحب هدي أنا عدين لهينه وحي أتجن دواتي هدي أنا دورنا ندم دورنا حرب تاوتها بورت على عرفنا ده إنه ما في عنيس كده على علني لكن سمال لان أنا أقول شخصي هنس ككلام ونقول لا because واحد كوك اسمه كرتاي مش هذا إن تلاحظ ضد ككل ما إيمان كرتي وأنا قلت لك وانا يسمى نص الصعدة ذيك بيد النص الصعدة وايد سمال لان واحد كم نوع ده ملايين مركها إن الأسود الراعي السمعها أما هذا الجواب سيسو waa inaad dadka kala saartaa mar walba hadalkaaga hadda deeqafka ka ilaalisa nin raga tahay adiga aanay yidin iyo raganimadooda uu de ku kalsoonahay moot taasna aad media keena saaxiibe marka ma fiicna in aad xanaaqdo oo aad tiraado dad kalena aad soo geliso meesh waxaad soo raadisay heesa cadeynaya inaad idin ka qayb gashay aad Soomaaliland lagaaga ma baahno waxa soo cadeynaysa sharci dawladda taasiyadu khusaysaa haddii ay ku ogolaato soo gelitaanka wadanka shacbigu hal laba midna ma aha ma garanaysaa hadda marka wada man kartaa shacbigu dhanna ma aha shacbigu wax weeyeen laakiin inta ka soo horjeesatay waxba ma aha inta marka adigoon uga jawaabin haddii aad timaado in hal kelmad baabad ee ku iman kartaa anigu dadka waxaan u soo socdaa wanaagsan haddaad tiraa inta wanaagsan baa ku soo dhaweynaysaa لكن هذا اسود الرأس من لو تقول ده قارهم بحناق أصو حناق ما قرنا صاحتاني أنا يقول حناق صاحبه أولا هذا محل بيكي بقى يعني أنا يقول حناق مرة أنت إنك ليه داورة أنا يقول حناق مرة ما أنت حناق إنك جد أي هذا ما قرأتين مركها اسمه كاسبا ماشي يعني كده بوح صوص على قرال وكل شيء جاي إنه الصعدة كينيا يوم مقدشو سواء كان هذا المركه هرجيسة دي هراء هذا الكيج اللي حيي أم سومالا تانا waxaan ka dareemay in xanaaq la gasho Maxamed Saciid BK oo halka iyada fanaaniinta reer Soomaaliland uu ficil ka yar tusayo oo aniga Kenya la igu soo dhaweynay Muqdisho la igu soo dhaweynay Jigjiga danta la igu soo dhaweynay halkan ma baahni waxyaabaan soo wato deema garan karo ma garanaysa laakiin isna taasoo keenay muhiim ah marka anigu qodobka ugu muhiimsan ee ka hadlay waxa weeye horta qofna qadiyadiisa inaad ku xukuntid ma aha qofka wixii idinka dhaxeeyay inaad kula socotaa haboon sidoo kale waxa fiican xanaaqada in la iska daayabsan labada qodob oo hadalkaygu daraa weela yar taraaruxuna daad u taraaxan raano midda kale daawade wanu soo afmeerina
si aan waqti badan idinka cun igana raalli ahaado waan ka xumahay inaan waqti idinka cuno ma rabin haddii aad videoga ku qanacday walaal boowe mudane marwo mas-uul hadda ma garanaysaa iyo dee xayraanba kulle xayraanna way iska daawan doontaa hadday doontee laakiin adiga ma tihid xayraanka kuwa kale guri kale ku daawanayo weeye adiga ma aha adiga halkaasoo fadhiya ma aha waa kuwa kale haddaba daawadayaal haddii aad barnaamijkan ka heshay fadlan like saar subscribe kusoo beer channelkayaga sidoo kale ha ilaawin inaad commentiga nagala qayb qaadato aragtidaada aad ka dhiibato siina sheergare la wadaaga saxaabtaada si ay xanaaqa dee meel iskaga tuuraan haddii aadan ka helina saaxiib waanu kaa raali gelina haddaad ku qanacdana dee mahadsanida asalaamu calaykum